وقابريا ووطني وقلكدايا ووطني وقابريا ووطني وقلكدايا ووطني وقبن كرايا ووطني وقابريا ووطني وقلكدايا ووطني وقابريا ووطني وقلكدايا ووطني وقبن كرايا ووطني daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkan idinka diyaarinay socdaaladii wafdida xisbiga mucaaradka wadani ay muddooyinkii ugu dambeeyay ku gaala bixinayeen deegaanada gobolka Togdheer wafdidan oo horkacayo hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan intii ay ku sugnaayeen Togdheer waxay gaadheen deegaanada Beer Unuuley Dhakool Inaaf Madoowe iyo deegaano badan oo kale halkaas oo shacabka deegaanadaasi ee wadaniyeysani ay si weyn u soo dhaweynayeen goob kasta ay gaadhaan wafdidani sidoo kalena wafdidan waxay xafiisyo ka soo fureen dhammaan deegaanadaasi ay mareen waxaana waxqabadyo hadeer bilaabeen iyo kuwa mustaqbal ah ay u ballan qaadeen qaar ka mid ah deegaanada ay mareen haddaba daawadeelna la daawada qaababkii kala duwan ay isu wajaheen dadka deegaanadaasi iyo wafdidu يا ماشي هيستي يا كلمية وعنو شيء إن هنا ماشان عقبة أنا كقوانين أنا ناكاي أنا كلنا يالين أو
waxa aanu taageeraynaa aan la soconnaa xisbiga leedo wadani xirsiyow adiga iyo cirraba codkayaga haddii aanu beernahay waa naga diyaar mudane iyo marwaba waa nugu haynaa warasiin ilaha siyaanye ee yidhi waxaan idinku ballamiyey muuse biixe waxa la yidhi nin alaab ag dhigtay oo yidhi alaabtaa ii sheeg markii uu alaabtii ag dhigtay ayuu yidhi alaabtaa ii sheego deedna intuu maqnaa buu tuuqaatay dabadeedna wuu soo noqday wuxuu yidhi war meeday alaabtian halkan dhigtay aan ku yidhi ii sheeg dee adeer waan eegi waayey buu yidhi dee bilaa hadhowta inagaba warhayn waa bilaa adeer hadhowto inagaba warhayn waa eegi waayey marka waxaanu leenahay xusbiga waddani baynu nahay ee isbeddel doonka ah 7 jeer intaasoo qof baynu doorannay mid quri inaguma soo noqon xirsi mooyaane cid inagu soo noqotay ma jirto xisbiga waddani waa xisbiga keliya abaarihii inoo jawaabay ee booyadaha halkaa noogu keenay waxaan ku habeenkii aanu hadallay ee ka jawaabay oo keliya ee booyadaha noo keenay 5 booyadood halkaa noo soo taagay ee baahidii aanu ka hadlaynay ka jawaabay waa xisbiga waddani iminkana cod iyo hanti iyo xoog wixii aanu hayno kala hakarin mayno muuse waxaan leeyahay iyo mayuu kulmiye waxa la yidhi habar jeclo abaalgud baa lagu siiyey abaalgud way ka weyn tahay wax habar jeclo abaalgud loo bixiyo way ka weyn tahay marka inan baynu maqli jiray abaalgud baa laysu siiyaa laakiin maynu maqal qabiil ama qaran baa abaalgud loo bixiyaa waxaynu aqbalaynana maaha waxa weeyaan qofkii taa u hanqaltaagayowna waxaad noqonaysaa gabadh nin la siiyo cid mehersan la waayo waxaan leeyahay soo dhowaada soo dhowow cod iyo codkar iyo culimo mid kasta waxaan u haynaa codkayaga iyo taageeradaba xusbiga waddani beereed waanu ku faraxsanahay maadaama maanta noo yimid in badanna waanu sugaynay xisbiga waddani maadaama uu yahay xisbiga qura adan dhalinyarada beereed nahay ee shayga qura sportiska naga caawiyey iminkana waanu soo dhaweyn iminkana waanu ka tirsanay xisbiga waddani waanu codayn doonaa magaaladaydii beer oo aan ku dhashay oo aan ku koray oo waxa weeyaan maantana shucuur aan ninaba caadi ahayn muujisay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay reer beereed dadka halkan maraya maxaan kugu dhahday meel kale kama imanin xirsi baa noogu weyn intayada kalena waa wada garanaysaano reer beereed baanu nahay marka waxa weeyaan waxaanu idinka baahannahay oo aanu annagu maanta marti idinka nahay xusbi ahaan inaad maxaan kugu dhahday codkiinna iyo cududiinna aadna siisaan annaguna wax allaale wixii maxaan kugu dhahday beer ee maxaa qabiya waanu qabiya tiri doonaa insha allah waxaanu ku talagalay maanta inaan xafiiska furo waxa weeye oo aan yani nimaadno oo idin nimaadno xafiiska furo laakiinse waa isu imanaynaa waqti dheer baynu insha allah isku qaadanaynaa waxaa noo qorshaysan haddii alla ka dhigo beer in laga dhigo magaalo dhammaystiran oo degmo ah oo leh bahalka la yidhaahdo ii sheeg iskuulkii beereeda hore la sameeyo oo beerihii laga shaqaysiiyo muruqmaalkay dhahaan jirtay beerihii in laga shaqaysiiyo hanaanka magaalo ahaan sarfaygii laga saaro meesha la yidhahdo beer in dib u habayn lagu sameeyo haddii alla ka dhigo ayaa xisbiga brograamkiisa ku jirta oo u qorshaysan haddii alla ka dhigo marka waxaan leenahay dadka reer beereed xisbiga waddani aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin xisbiga waddani waa xisbigii insha allahu tacaala beer horumarin lahaa waa xisbiga aynu doonayna dalka inuu horumariyo
وحسب إن دونين وحوذا قبصنه عيد إذن ترادا وأنه خصبتين يا وبانتين عيدا وعسكو درستان بأو بانتين وعسكو درسان إنسان وطني وأنو إذين باهي عيدنا وما خصبنا إذين ضلكوا ديمقراطي عدكينا كو دورتا وحانا إن شاء الله تعالى عدكينا مركا كو دورتان وإذين بلغا أنه مشرحة ودنا هالكا إذيكو كينيا مشرحة مدحوين أنه ودنا أيان هالكا إذيكو كينيا وحانا إذيكو بلغا هذينا إن مقالة دقمهانا دقمة دي لاسحيو لانا هورو مريو لانا دقانكي لهورو مريو باريه لهورو مريو كيكي الحسبقا وانو سوغيني وانو دونيني وانو دوراني وحانو كو دوراني dee waxa la guriya sameeyay lama deego mid walba magaciisa baa lagu qaatay horta marka hore magaciisa baa deeqay iyo xisbiga wadani marka waxa weeyaan xisbiga waxaanu yaani u dooranay oo kale markii aanu weynay dawladii hore ee haysatay dalka iyo hawsha soo waday muddada dheer soo waday markii aanu wax qabada ka weynay ee aanu ku guul dareysanay doorashadii aanu dooranay iminka cidii kasta noo naga bedelaysa inaanu iyadana eegnaabaan marka hore u dooranay oo ka doonaynaa inaanu isbedel ka helo in aanu ka helo wax qabadkii aanu ka weynay dawladii hore dhibaatada yani deegaanka kan hawlaha ka jira ee dawlad la'aaneed maaha mid la soo koobi karo waa mid biyo la'aaneed waa mid caafimaad la'aaneed waa mid ammaaniyo bolis la'aaneed waa mid dhibaato ay dhan tahay dawlad la'aan yani isugu tagta dhammaanteed markaa waxaanu ka sugaynaa oo ka rajaynaynaa xisbiga wadani inuu yani intaasba noo qabto iyo in kasii badan oo horumar ka sameeyo degmada iyo dalka iyo ummadda halka kan taalle ee yani ka qatan xornimadii iyo dawladnimadii iyo dhibaatadii u soo martay halganka ku qaday aan waxba ka helin in aanu helo yani markaa yani abaalgudka iyagii ayaanu ka doonaynaa oo ka sugaynaa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu nala qabto halganka aanu ku jirno ee aanu yani ku barbar taaganahay xisbiga wadani haddaanu nahay dhallinyarada reer magaalo yar aad iyo aad waxaan u taageeraynaa xisbiga wadani ayaanu taageeraynaa marka hore waxaa la yidhi biyo way gororeen meel godob bay isugu tageen annagu waanu gororno wadani baanu nahay marka u horeysana xafiiskan annagaa qalabaysanay annagaa isugu nimi haddaanu nahay ururka dhallinyarada wadani ee hilaac bari annagaa qabaysanay marka u horeysana xirsi waxaanu ku odhanaynaa adiga iyo waftidaada ballaadhan aad hogaaminaysaa waa inaad haddaanu nahay ururka dhallinyarada reer inaaf madoobe waa inaad aad iyo aad noo taageerta waxaad iska ilaalisnaan qof buulhunguriya oo calan intuu soo qaato ama xildhibaan degmada laga doortay ha ahaado shaqadii loo doortay khashigii guri waayey ama ha ahaado mid kaloo buulhunguri soo qaatay qof calan la ordayo meelaha ku laala horta kaa waad ka digtoonaanaysaa reer magaalo yaro waa qodobka labaadna haddii ilaahay ka dhigo xisbigan wadani xisbigii shacabka weeye innagu xisbinimaynu wax ku dooranaynaa qabyaalad hadday wax tarayso labada bahdaaba kala tegaya horta sidaa ma aha way soconaysaa ilaa bahdayna gaaraysaa annagu sidaad ogtihiin inagu jaar baynu nahayoo annagu dhakool iyo gaatamo iyo qoryaalaba ka soo xoreynaya calankaas labada gacmood ee jeegaanta leeyahay salaamaye idinkana waxaa idin leeyahay ka xoreeya oo ka saara intaasaan idinku guubaabinaya ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu xaqa inagu guuleeyo xaquna wuxuu yahay ummadda somalilan 5 sanood bay jirtaa intii xorriyaddeeda la soo noqotay deegaanadan maanta waad aragtaan burco ka sii weyn baad aragtaan arrimaha bulshada haddii caafimaad tahay gabadha halkaa idinkaga umusha ambulance ugu qaadaa ma jirto intii haddii ilaahay idinkiisa leeyahay ay jirtay xukuumadda jamhuuriyadda somalilan dee waxqabad baa meelaha laidin soo maraayay raggii wax qabtayna waa kuwan garbahayga taagan waar wax ka dambeeya ma idin soo gaadheen intaa ka dambeysay haddaba tii mid ka weyn baa iminkana ima doontee insha allahu tacaala codkiina ku hubsada aad iyo aadna waad mahadsantihiin ballanteennina waxa weeyaan haddaynu deegaano nahay ilaa qoryaale ama gaatama ama dhakool ama inaaf madoobe xisbiga wadani baynu nahay soo sidaa ma aha oo hogaamiya xisbiguu taagan yahay oo awgeedaan halkaa bar bannaa markuu wadada ceerkaaba laga bilaabo halkaa ugu dib jiray ee ogta iyadoo shay qura aan u oolin maanta iyadoo wax waliba yaallaan ay shaqadii fadhido waxaynu leeyahay nin walba wixii lagu bartay inuu ku shaqayn doonaa nin walba dadka abaalku gashaday inuu maanta ka doonayaa aad iyo aad baa mahadsan tihiin wanaag baynu u soconnay wanaagaasaa xisbiga ku dhisaysaan soo maaha aad baa ugu mahadsan tihiin soo dhowaynta aad baa ugu mahadsan tihiin inaa wadani nala qaadateen aad baa ugu mahadsan tihiin intii ka shaqaysay xafiiskan ee qalabaysay ee maalgelisay ee waxa weeye iyadu isu xilqaantay ee dhallinyaradu ka mid yihiin halka ka hadlayay
hilaac aad bay u mahadsan yihiin dhammaantood intaa kadib reer magaalo yar runtii hore iyo dibba waxaa loogu yaqaanay gobonnimo iyo sharaf kamaan aanaan warwarayna mar horena sidaas ilaag baa noo soo dhaweyseen haddii alla ka dhigo waktiga nimka waa diyaar garowgii xafiisyadii baa la diyaarinayaa ololihii baa la isu diyaarinayaa insha allahu dawlad baynu dhalin doonaa biidni illahi tacaala wax ku leedihiin dawlad insha allahu tacaala aa ka heli doontaan sadka aa ka codsateen aa ka heli doontaan waa insha allahu tacaala waa idinku ballan qaadaynaa sadka wixii halkaa ka tabaysaan ama ka tabanaysaan inaa ka heshaan intaana insha allah u safra 40 cishaa inaga xiga ama dhowr iyo 40 cishaa inaga xiga waqtiga guusha aynu filaynay guusha insha allahu tacaala codkiina ku dhaliya wax la yeesha cidna uma afduubnidin waxa kala dooraysaan xisbi idin leh anigaaba kule oo anaa wax kugu leh habad baan kugu leeyahay iyo mid kule waan wax igu darso ila lahow hadda u fiirso midna wuxuu ku leeyahay habad baan kugu leeyahay anaa kuleba midna wuxuu ku leeyahay waan wax igu darso ila lahow dadku waxa weeye waxay xisbiyadu ku kala duwan yihiin barnaamijyada ay soo dhigaan iyo hogaamiyayaasha iyo madaxda ay keenaan bay ku kala duwan yihiin labada calan waa laba maro oo yani isku mid ah waxay kale ku kala duwan yihiin sidii uu sheegay ninkii waxa weeye magaca wanaagsan ama tafaawulka waxa carabiga lagu yiraahdo doorashada waxa wanaagsan ayaa nabigu inagu yiri waxa wanaagsan doorta salawaatu rabbi salaamu calayhi intaasi kadib wafdidan uu hogaaminayo hogaamiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan waxa uu sii boqoleen deegaanka Gaatama oo xisbiga wadani munaasabad soo dhaweyn ugu sameynayay taageerayaal tiro badan oo ka soo digorogtay xisbiga kulmiye iyo sidoo kale dhagax dhiga dugsiga wax ku bartaan daayarta deegaankaasi oo ay baahi weyn u qabeen waxaana kamid ah khudbadihii kala duwan ee halkaasi laga jeediyay waraabayaashii wadanka haystay warkooda diido wadan raacnay irada taniya boosa hasayo galkacayga sare taniya harga haysayo xuduudaada sare wadani la doorayo wuu ku guulahaystay madaxweyne helye u dabaaldega tama waxaan Xirsi Cali Xaaji Xasan ka gudoomay iskuulkii magaalada Gaatama iyadoo 27 sanadood magaalada dhisnayd afar dawladoodna aanu ka qayb galnay midna aanay waxba noo qaban waniga maanta ka gudoomay alxamdulillaah rabbil caalamiin 25 jir baan u nahay indhii baan la ka riday maanta indhii baan loo furay Xirsi oo ka gudoonay xisbigiisa waanu soo dhaweynaa cid kasta wax noo qabanayso wadani inuu soo dhaweynaa codkeena wadani ha noolaado Xirsi ha noolaado kulmiye ha dhaco waxaanu cadaynaynaa halkan ka cadaynaynaa inaanu diga roganay markaanu aragnay gudcurka madow ee xisbiga kulmiye 22 sanadood nugu hayay soo xoog iyo cudud iyo cod gedigaanu kuma ballansanayno wadani ugu gudno kulmiye dooni mayno bareer baanu uga tagnay annagu waxaan nahay magaalada tuuladan Gaatama kulmiye waanu dooranay waanu codaynay mar haddaanu iskuul ka weyna wax kala daayo iskuul tuuladan waxa soo population joogaan ee inta la eegi mar hadda iskuul ka weyna wax kala daayo waanu ka tagnay ha ogaadeen qofkii qof dilaalaya cid kasta ahaadee isla dushiisa ku noolow dee ku noolaan kari maayo dadkii imika waa soo wada gaadhay oo nin ha ku hashareyn dushiisa ku noolow 30 sanadood baan lahaa annaga wax idin qabanayna annaga idin joogna annaga idin la joogna annaga idin dhisayna annaga idin gurmanayna 30 sanadood waxa awr baan lagu kaxsanay waxaanu nahay wadani mana ka hadhi karo Gaatama intay ka tagaan bay higlo loogu iman jireen ardayda oo ka dhigan jireen baahida ka jirta ee waxbarasho la'aaneed oo ay halka ka soo lugeyn jireen oo ka soo lugeyn jireen haddana 6 sanadood baa la joogo kulmiye joogay 6 sanadood waxba kama qaban iminka annagu haddii xisbiga wadani uu noo qabtona waa ayidsannahay oo ku kalsoonahay waana ugu ridaynaa miyana waa idiin sheegayaayo tooshku haddii baytariyada laga saaro miyuu baxaa xisbigii kulmiye baytariyadii waa laga saaray baytariyada kulmiyana Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo Siilaanya labadiba way ka qaateen maanse yaro gaaban oo maanta aan halkan ka oranayo ayaan reer Gaatama iyo reer Somaliland ba aan leeyahay waxaan leeyahay dareenka isiyo xisbiga aad doonaysaan intuu doorashada hantiyo
dalkeenna inuu hago dhabbada lagu doogsaday iyo aqoonsiga soo galo dunida calankeenna sudho dabuubta dhagaystoo bulshay dacalka laha marin waa idin baryayaa boqontu garan maysa ee siyaasaddu waa dadaal duruus lagu soo barto sanadadabad iyo dhulkila ayaa lagu soo dersaa dagaalyahan baan hoo dadkaan layn jiray anigu dalkan ugu dhaafay oo maslaxad lagu dirsiyo xorriyad buu doonaya waxaan ugu doorannay waddani ula doonaynaa haldoorkii maanta iyo aqoon-yahankii dalkaba isagaa daadihinayo waddani waa diiraddaa dunidu wada eegayso hogaamiye daacadoo dadkiisa u faytay iyo ciraa kursigaa damee codkiina ku doorta kaas ninkii duubka loo xidhiyo duqana waxaynu leenahay ducada waad necabtahay daldalaad baa kula gudboon gaatay maanta 25 sannadood intii xorriyadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay la soo noqotay bay jirtaa jamhuuriyadda Soomaaliland la soo noqoshadeedii la da'tahay intaaba way soo jirtay horta waxaa hagraday oo halkaa dhigay dee curadadii u kacay waa curado baaqday noqdo halkaa dhigay xisbigaa maanta magaca waddanigaa sita ee waddani ee aanu wadno horta marka hore waa xisbigii bulshada hadduu xisbigii bulshada yahayna arrimaha uu kow ka duulaya waa arrimaha bulshada ee kuwaa idin taabanaya ay tahay idinkiiyo deegaanada kale Somaliland dalkeennana waxyaabaha halkaa dhigay waxaa kow ka ah oo ugu weyn oo aan la dafiri karin in horumarka ay hor taagnaayeen shakhsiyaad wax gaara la siiyo ama iyo wax gaar wax ku qaba inkastoo kulmiye ku jiro idin imanaya caruurtiisa qurbay joogaan waxbarashad waxay ku jiraan Hindiya waxa ayaa la idinku maaweelin wala ku musharax ka kulmiye wala ku ka wasiira midna waxba idima yaalaan la duruuf ma tiidin la ujeedo ma tiidin damqasha ka tihiin nin walba wixii darahaaga ubadkaagu ay ku jiraan ee annagu aanu ka nahay wax la gala maamulka maanta 7 sano ka talinaya xukunku ka talinaya wali aanay wax tarin ka soo gaarin marka nagu celisaa maanu xidin tari doonaa macquul maaha waroodo iga tagbaa maanta u taala ka damaanka ayaa ka dhursugayaay waxa ugu horeeya oo insha Allah tacaala aanu imika dhagax dhigayna iskuulkii ama xaruntii waxbarashada ee Gaatama hadda anagoo mucaarad aanu leenahay hadda abaanu sii qabanaynaa sii bilaabaynaa bal hadda kuwa dawladdiiba haya ee laga karlayo wax noo qabo soo waxa doonaysaa wax qabad maaha kuwa noocaas maanta ba jooga kula kulmiya wax ku qabanaya de mo maanta qabto kuwii naga imanayeen idinka imanayeen wixii ay naga soo qaadaan idimay soo gaas maantana waxa idin leeyihiin kulmiyaan maantana dilaalka ay budleemay yeelaysaa daawadeel intaas waxay noogu eeg barnaamijkan idinka diyaarinay socdaalka ay ku mareen wafdidan hogaaminayo hogaamiyaha xisbiga mucaaradka waddani Xirsi Cali Xaaji Xasan deegaanada bariga gobolka Togdheer waxaana barnaamijkan idin socodsiinaya anigoo Jaamac Salebaan Cumar ah aniga iyo asxaabtii kale igala qayb qaadatayba waxaanu idinkaga teganaa say nabadino nabadda ka wada waa waddani waxyeelada nacab waa waddani wax badan dhowra waa waddani waddanka dhisaya waa waddani bulshadu wadataa waa waddani weynuhu la jiraa waa waddani